sanad walba waalidkiisii waxay Yeruusaalem u tegi jireen ciiddii kormaridda. goortuu 12 sannadood jiray ayay ahayd sidii caadadii ciidda u ahayd, oo goortay maalmihii dhammaysteen oo ay noqonayeen ayaa ciise wiilkii ahaa ku hadhay Yeruusaalem. waalidkiisuna ma ogeyn, laakiin iyagoo u malaynaya inuu dadka la socdo ayay maalin sii socdeen. markaasay ka dhex doondooneen ciyaalkooda iyo kuway isbarteen, oo markay heli waayeen ayay Yeruusaalem ku noqdeen oo ka doondooneen. waxaa noqotay 3 maalmood dabadeed inay macbudka dhex galeen, isagoo macallimiinta dhex fadhiya oo dhegaysanaya oo wax weydiinaya. dadkii maqlay oo dhan ayaa la yaabay garashadiisii iyo jawaabihiisii. goortay arkeen isagii way la yaabeen, oo hooyadiis ayaa ku tidhi, wiilkaygiiyow, maxaad sidaas noo yeeshay? bal eeg, aniga iyo aabbaha caloolxumo waannu kugu doondoonnay. markaasuu wuxuu ku yidhi, maxaad ii doondoonaysaan? miyaanad ogayn inay igu waajib tahay inaad danta aabahay jeedo? laakiin way garan waayeen hadalkii uu kula hadlay. markaasuu raacay oo Nasareed tegey, wuuna ka dambeeyey iyaga. laakiinse hooyadiis hadalkaas oo dhan qalbigeeda ayay ku haysatay. ciisena wuxuu ku qoray xigmad iyo dherer iyo nimco Ilaah iyo dadka hortooda